السلام عليكم waxaa hubaal ah in qof kasta inaga mid ah uu soo galo dhaqaale haba lagu kala duwanaado inta uu leeyahay dhaqaalahaasi haddaba waxaa jirta cilmi la barto oo la yiraahdo idaaratul maal kaasoo qofka xitaa haddii dhaqaalihiisa ama dakhligiisa uu yar yahay ku kalifaya inuu ama u sahlaya inuu ka maamul wanaagsanaado ugana faa'iido badnaado qofka aan aqoon habka loo maamulo dhaqaalihiisa waayahay khibrada ku takhasusay cilmiga dhaqaalaha runtii waxay isku raaceen qofka hababkan raaca oo maalkiisa sidan u qaybiya ama dabaqaadkan inuu runtii ku najixi doono kuna liibaani doono wax fiican oo ka qabsan doono hantidiisa waayahay dhaqaale kasta oo qofka soo gala hab badnaado ama ha yaraado waxa laga doonayaa inuu systemkan u maareeyo hantidaada marka waxaad u qaybinaysaa 5 bracket ama 5 khaanadood baad gelinaysaa $1 hadduu xitaa maalintii $1 wax ka yar xitaa haddii ku soo gasho waa inaad systemka u martaa haddii $1,000 ku soo gashana sidaas oo kale habkan wuxuu yahay waxaad sameynaysaa 5 khaanadood baad u sameynaysaa khaanada koowaad waxa weeyaan necessary ama necessity na waa oran kartaa ama ad-daruuriyaat xayaatul yawmiya nolol maalmeedkaaga inaad khaanad ka dhigtid oo dhaqaalahaaga uga goysid iyadoo noqonaysa 60% taasoo macnaheedu tahay haddii $1 ku soo galo 0.6 ama 60 senti oo kamida inaad halkaa ugu tira gashid waxaana hoos imanaya raashinkaaga dhaqaalahaaga biyaha korontada prepaidka mobilka adeegsan arrimahaas oo dhan baa hoos imanaya khaanada labaad ama pocketka labaad waxa weeyaan emergency ama xaalad tawaari xaaladaha hadba kugu soo kadiya tusaale caafimaad darro kale arrin kugu soo kadiya laakiin iman doona oo aadan filayn inaad ka gaashaamatid oo ka hortagtid 10% baad ugu talagelaysaa taasoo macnaheedu tahay haddii $100 ku soo galo $10 oo kamida waa inaad meel dhigtaa waxaad ka ilaalinaysaa dhaqaalaha iyaga ah inaad wax ku iibsato inaad raashin ku gadid inaad la soo baxdo inaad ku dalxiisto ayaad ka ilaalinaysaa xaaladda kugu soo wajahan emergency-ga ah khasab qof bini aadanka duruuf buu la kulmi karaa inaad ugu tala gashid weeyaan khaanada saddexaad waxa weeyaan idkhaar بعدين استثمار وحوية safety after that investment inaad lacagtaada 10% oo kamida inaad kaysatid muddo kadib markay biiraan aad samaysid maalgelin aad wuxuun ku maalgashata ama ganacsi ama wuxuun weeyaan marka taas waxay sahlaysaa in dhaqaalahaagi uu kobco waxay ka dhigantaa $100 markay ku soo gasho inaad $10 oo kamida aad meel dhigatid muddo kadibna markay badato lacagtaasi aad dhaqaalaha ku samaysid $100 oo kale $100 oo kamid inaad meel dhigatid oo aad kaysatid kadibna hadhowta aad ku samaysid istismaar ama investment wuxuuna aad ku maalgashatid khaanada afraad waxa weeyaan learning ama at-ta'allum inaad lacagtaada qayb kamid ugu tala gashid inaad wax ku baratid cilmiga lagama maarmo 100 PhD hadaa wadatid inaad wax baratid waad u baahan tahay qaybtan inaad lacag ugu tala gashaa cilmiga ku siyaasatid waana khaanada afraad khaanada shanaad ee u dambaysa waxa weeyaan as-sadaqa ama an-nafaqa in hantidaada sadaqad kala baxdid waana arin diiniya markasta oo aad wax sadaqaysatidna waa markasta oo dhaqaalahaaga iyo dakhligaaga uu siyaado sadaqaduna waxa la isku waafaqay markii la baaray inay siyaadiso maalka waayo ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka wuxuu ku leeyahay man alladhi yaqridu allaha qardan hasanan fayudaa'ifuhu lahu ad'aafan katira qofka ilaahay amaaha uma baahna laakiin qofku wax la baxa ilaahay wuxuu yiri waa u laban laabaya ama taa in ka badan baan siinaya aakhirina janno iyo abaal buu ka helaya marka sadaqaduna maalka waxa kama nuqsaamiso ma naqas sadaqatu min maalin sadaqo maal waxba kama ay nuqsaamiso waana arintaas la isku waafaqsan yahay insha Allah ta'ala aad baa u mahadsantahay haddii aad samaysid 5 khaanadood maalkaaga u samaysid oo aad sida u maareysid xaqiiqatan waad ka faa'iideysaa waadna ku najaxaysaa xitaa haddii dhaqaalahaaga uu yar yahay wax badan baad ka qabsanaysaa aad baa u mahadsantahay muuqaalkan Lexar soo asxaabadan u gaaro siina share gareys walaalo sida adiga kale wanaagsan aan u helo in la soo follow gareyso muuqaalo noocan oo kale ah mar walba aad la socotid aad baa u mahadsantahay oo ragaygiye